Bismillahirrahmanirrahiim waxaan wanaagsan khiyaarta awdeega daawanaysa ku soo dhawaada wararkii Soomaalida kuwadii ugu dambeeyay wadada hore ka daawataan YouTube-kan qolwareedkan soo socdo ee beedmo waxaad ku maqli doontaan war cusub oo ka soo kordhay doorashooyinka Koonfur Galbeed haddaba maxaa cusub intaan ku soo gudbin qodobkaas faahfaahsan fadlan maqaalka laga saaro share garay waa 4 bisha 2026 intaan ku soo gudbin qodobkan faahfaahsan fadlan maqaalka laga ugu dadaal haddii aad YouTube-ka daawanayso aad baad u mahadsantahay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa maanta tallaabadii ugu dambeysay ee doorashooyinka Koonfur Galbeed u qaaday iyaga oo qalabkii doorashooyinka u diray deegaanada kala duwan ee maamulkaasi Koonfur Galbeed waa si warka loo dhigay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Cabdixakiin Axmed Xasan ayaa shaaca ka qaaday in 10ka bishan oo ku beegan axada soo socota ee baydmeyn doorashooyinka qof iyo cod ay ka bilaaban doonaan Koonfur Galbeed isla markaana la soo dooran doono gole deegaanka degmooyinka ee maamulkaas waa sida warka loo dhigay Cabdixakiin ayaa xusay in 13 degmo oo ka tirsan Shabeellada Hoose iyo Bay iyo Bokool loo qorsheeyay in ay ka dhacaan doorashooyin si dadweynaha ay qayb uga noqdaan una soo doortaan golayaasha deegaanka waa sida warka loo dhigay sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray in dhammaan ay diyaar u yihiin goobaha doorashooyinka iyo shaqaalihii ka shaqayn lahaa si loo gudagalo arrinta waxa uu istaa kala sheegay in astaameeyeen goobihii waxaan diyaarinay buu yiri shaqaalihii iyo tababar aanu siinay waxaan isku dubaridnay buu yiri dhammaan wixii loo baahnaa ayuu yiri Cabdixakiin bulxayli dambe ka soo cusmanaa daawada Koonfur Galbeed wararka qaarna ay sheegayaan in Cabdixakiin Koonfur Galbeed lafta garan uu doonayo inuu mar labaad baydhabo xoog kula wareego warkaas oo isagana aan la hubin bal maqaalada dambe ku daawan doontaan fadlan maqaalkan laga saaro share garay nabaday